shacabkeena waa siina waxay u baahnayeen ay waayeen muddo dheer oo ah xasilooni siyaasadeed hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad dowladani waa dowladii ugu horeysay oo bixisay waxbarasho free ah oo lacag la'aan oo u badan agoon waa dawladdii shacabka waxay ku timid rabitaan dadweyne qorraxda ayay u istaageen shacabka si ay taageero ugu muujiyaan madaxweyne Farmaajo qabiil kuma taageerin lacag laguma siinin inay dibadbaxyo soo dhaweynaha u sameeyaan wax qabad wadaniyad iyo howlkarnimo ayay ku barteen dawladda uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxay xoogga saartay kamera dhalinta 10 arrimood oo kala ah dhisidda ciidan qaran sugidda amniga cadaaladda kobcinta dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa dawlad wanaagga adeegga bulshada dib u heshiisiinta xiriirka caalamiga ah iyo joojinta faragelinta shisheeye waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed waxa laga faa'iideysanayaa qaybsanaanshaheena inaan qaybsannahay iyo ka faa'iideysanayaan waxay ka faa'iideysanayaan tabardarradeena ka faa'iideysanayaan laakiin wallahi ma yaqaanaan Soomaali madaxweyne Farmaajo juhdi badan ayuu galiyay in la helo ciidamo qaran oo xoogan geed dheer iyo mid gaaban ayuu u fuulay inuu dalka u dhiso ciidamo ka samata bixiya dhibaatooyinka argagixisada markii ugu horeysay xafiiskiisa ayuu u wareejiyay gaashaandhigga muddo ayuu halkaasi ku shaqaynayay si aan looga sheekayn xogta ciidanka una ogaado xaqiiqda rasmiga ah saraakiisha iyo askarta ayuuna xog wareysanayay taasi oo keentay in madaxweynaha uu helo furaha hagaya dhismaha ciidanka iyo caqabadaha hortaagnaa waxa uu dhex galay ciidamada waqtigiisa ugu badan ayuu la qaatay furimaha dagaalka ayuu ugu tagay si uu u dhiirigeliyo mushaaraadka ciidamada oo markii hore ahaa mushkiladaha ugu weyn ayuu meesha ka saaray joogta ayay noqdeen tira koob iyo diiwaangelin casri ah ayaa lagu sameeyay ciidamada waxaa meesha ka baxay lacagihii gacanta lagu qaadi jiray waxaa la bilaabay in askari kasta akoonkiisa bangiga uu xuquuqdiisa ku qaato si looga hortago musuqmaasuqa madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed u kordhiyay mushaarka maanta farxadeena lama soo koobi karo maxaa yeelay qalbigooda aad u dhismay moraalkooda waxaan u hambalyaynaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa waaye aad ugu faraxsanahay mashaaraadkii loo soo kordhiyay waxaan mahad celinayaa madaxweynaha sharafta mudan dhalinyarada wax bartay ayaa fursad loo siiyay inay ka mid noqdaan ciidamada kulliyadaha ciidan ee tababarada waxaa ku jira kuwa loo carbinayo difaaca dalka magacyadii xumaa ee ciidanka loogu yeeri jiray ayaa meesha ka baxay kuwii laga cabsan jiray maanta waa loo soo cararayaa waxaa muuqda ifafaallo ku tusinaya in qarankeennu uu ku socdo dhabbihii guusha iyo baraaraha qorshe amni ayaa loo dejiyey magaalada Muqdisho waxaa yaraaday faldambiyeedyadii dhici jiray qaraxyadii joogtada ahaa waxay noqdeen kuwa la fashiliyo iyo kuwa loogu tago halkii lagu farsameynayay caasimadana waxay yeelatay weji kale oo nabadgeliyo iyo horumar saldhig u ah madaxdeenna way dadaashay waqti yar haddii guulo taariikhiga ay soo hoyeen soo ma mudna in jaanis kale la siiyo si aan u helno mar kale qaran weyn oo leh cudud ciidan oo barisamaadkii aan caan ku ahayn madaxweynaha dalkaygow madaxweynihii dadkaygow madaxweynaha dayartow madaxweynihii dayartow mudana madaxweyne Farmaajo hambalyo mudana madaxweyne Farmaajo hambalyo Waqooyi Bari TV